السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دوا سلام يا سلام كدب وعنوهم بليين يا حلقة قرنك الصومالية وقول ما تجاري سيمبابوي أنا ومعي القبنو وعلى سعتانو مالنتي دويتو مركان كعد كارني روبد مجابي ورجال قلبي أنت سقوط تجين cunaqabateen kasta saareen waxba ka qaadi waayeen baan garka wadno go'ay markii la yiri Soomaaliya inay ka badisay oo 9 jira markii laba gool baa la dhaliyay afaf buu u dhacay maalintii marka Zimbabwe odaygii u weynaa oo Ingiriis ka xoreeyay oo Robert Mugabe xataa Afrika oo dhan ay ku indha kuulsanaysay haddaanu anagu wadnaha jarnay waxba Zimbabwe uma ciil qabno maanta hal gool ay keeneen oo nico caataana de kubaddu cadaan iyo madooba waa leedahay marka wiilashii Soomaaliyeed iyo xulka qaranka Soomaaliyeed tababarashayashooda ciyaartooydooda iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda meel kasta joogaanba hambal yaan leeyahay meel fiican bay wax ka wadnaa sida wax u wadnaa si fiican weeye ilaahay idankii koobka qadar haduu ina ka baxsado kan Mareykanka lagu qaban doono baanina seegi doonin inta marka laga gudbo waxaan rabaa Carab inaan la hadlaa Carab waxaan leeyahay waxaan arkay wargeysyadooda qoraya حل homeless oo bila guri ah ya ba badiyay Carab baan ka maqlay Sacuudi iyo Imaaraad baan ka maqlay waxaan rabaa inaan u sheego war horta anaga xulkayagu homeless maaha Carabay waa maqlaysan waa daawataan sida la ii sheegay homeless maaha oo Muqdisho ma joogin waxa joogeen Djibouti bay joogeen Djibouti iyo Muqdisho anaga laba magaalo oo Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wada leedahay dadka Soomaaliyeed dad isku diira isku dana meel kastu kala joogo si kasto loo maxaa ku raadayay dalalo kala yahay weeye Carabay Djibouti hadaa sheeyay moodeen anaga sukayeeno yihiin walaalahayo weeye maxaa ku uliyo diirkeedaan nahay ininka Falastiinu gurman la ininka baasaboor siin la ininka Suuriyaan maxaa ku raadayay iyadoo maanta xarbiga ay ku jiraan la og yahay maxaa ku raadayay kiis qamandiya u geyn la marka Carabay anaga wiilasha Djibouti way noogu soo tababaranayeen Djibouti iyo Muqdisho anaga waa kii alla wax naga dheefsiyo Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Djibouti way laakiin Soomaali meel ay leedahayba meel ay joogtaba waa ninka ku taagantaa Ismaaciil Umar Geelle baa wiilasha noo hayay isaga noo soo carbiyay waa aabba Soomaaliyeed weeye waa oday Soomaaliyeed weeye waa hogaamiye Soomaaliyeed weeye waxa weeye kunkii Soomaali hogaaminayso kuwii soo maray ilaa maalinta xorriyadda la qaatay iyo Ismaaciil annaga Ismaaciil baan ugu qiimo badan shalay markii aan qaxnay sidoo noo soo dhaweeyay baa ogtihiin dawladnimada Soomaaliyeed ee maanta la haysto inuu isagu soo yabyabay iyadoo Soomaali kala dhaqaaqday oo wax isu dhiiban la oo is aamini la inuu carta ku shiriyay oo halka dawladnimada Soomaaliyeed Cabdiqaasim ku soo doortay iyadoo Itoobiya iyo Kenya ay lagu hayso baa la socoteen waxa la socotaan badda Soomaaliyeed cidda maanta waxa weey Soomaali u dhicinaysa isagu inuu koow ka yahay maalintii dhaweeto codka fiito inuu saaray markii midowga Afrika ay damceen inay maxaa ku Carab baan u sheegaya Carabay annaga ninkaas aan noo tababarayay ninkaas aan wiilasha noo hayay farmaajo la joogan hadii la yiraahdo waa ka walwali lahaa laakiin Ismaaciil bay la joogan ka walwali mayo Carabay saa ogaada hadii Muqdisho joogan oo ku tababaranayaan xulkii qaranka la leeyahay waa ka walwali lahaa arama al-shabaabti baas qarxisa arama maxaa ku raadayay wiilasha dayacmaan arama maxaa ku raadayay meesha dagaalo sukeeyo waati Muqdisho stadiumkeeda ma diyaarsana laakiin Djibouti bay ku tababaranayaan nabadgelyo waa gurigoodii hooyo weeye waa dalkoodii hooyo weeye waxa weeye Muqdisho iyo Djibouti waa tii alla wax ka dhifsiyo Carab baa u sheegaya marka Ismaaciil waa ninka Soomaali ka dhiman weyday muddadii burburka lagu jiray waa ninka ku baxsanay weeye maalintii dhaweyto markii Kenya ay tiri golaha ammaankan xubin ka raba Djibouti waa barida dhulka ugu dhufatay waxa la socotaan Soomaali inay waa hore kala dhaqaaqi lahayd oo kala googooy lahayd oo 5 gobol noqon lahayd Ismaaciil weeye ninka isku haya midnimadeeda ka shaqeyn sheer gareeya nacala shaydan ku yaale odayga Soomaaliyeed hadda wixii ka dambeeya wax badan baan dad bilaa macna ah ku danseegay waa u qalab qaadanaya bari laga bilaabo barnaamijyada ka soo sameyn doona hadii ilaahay idan kala ogolaado Carab ay u kalifay waxay ka dhigeen nisheeye ay ka dhigeen Djibouti dal sheeye ka dhigeen waxaan tusaynaa Carab annagu Djibouti la'aanteed in waa hore haad iyo waraf uu naga dhirgi lahaa baa u sheegayna markii Soomaali burbudhay oo kursigii qaramada midoobay kii igad kii Afrika kii jaamacadda Carabtu u banaanaaday Ismaaciil baa noogu fariisanayay isaga noo ilaalinayay isaga boorka ka jafayay hadda koorshil Qaahira ka dhacay oo jaamacadda Carabtu isugu tibi oo kursigii Soomaaliyeed oo banaan u arkay
waxa la yiri kii Jabuuti intuu ka kacay kii Soomaaliya fariistay macnaha suu oo dhaska saa uga tirtiray ninka weeye marka carab waxaan u sheegaynaa walaalayaal idinku hadiidan wax iska tarin diinta isku qadirin wada dhalashada wax isku tarin luuqadda wax isku tarin walaaltinimada wax isku tarin waxa weeye annaga iyo Jabuuti Soomaali ummadda Soomaali dad ehelo weeye meeshaan ka dhimo weynayna waa ninka dawladnimadayada cidda koolkooliyaysa waa la socotaan ciidanka AMISOM waxa weeye Jabuuti qayb bay ka tahay Itoobiyaanku meeshuu jooga qaylada ka yarta waa aragteen Kenyaatigu say dadka dhulka ugu jiidaan waa aragteen Ugandayska waa aragteen Burundigu suu arxanka inoo ku galeen waa aragteen meel hiil walaal ciidamada Jabuuti joogaan sektarka Hirshabeelle ee beledweyn ay joogaan wali qayla ma ka maqasheen Ilaahay baa ku dhaartay Soomaaliya hal habeen qayla ma ka maqasheen habar bay jiideen ma maqasheen waxa weeye oday bay dhangadayeen ma maqasheen waa maya waa walaaltinimada waa wada dhalashada waxa weeye Itoobiyaan in la ka saaro iyagana la ku bedelaan jeclaan lahayn marka carab waxaan u sheegaynaa annaga Ismaaciil Cumar Geelle wiilasha isaga noo soo tababaray annagoo dhanbuuna hayaa waa naga wakiil waa ku qowracanahay dadka reer Jabuuti waxa rabaa inaan u sheego waa la socotaa ninka cadow badan buu yeeshay waxa la ii sheegayaa imaaraad markuu dekadii ka saaray inay dad dubka Soomaali ka Jabuutiyaan ka laakiin jawaasiis ah inay lacag soo siiyeen inay damacsan yihiin Jabuuti inay sidaa Soomaali ay u kala dileen oo u kala dhantaaleen oo badahoodii iyo dekadahoodii u dhaceen inay Soomaali in booro iyo bala la sheegay meel daran ka yimi inay dabada ka wadaan kuwa idaacada ka qaylinaya waa la sheegaya waxaan u sheegaynaa war ninoo culus baa haystaane war ku fara adayga war Soomaaliya kulli baantay xagee idinku joogtaan Jabuuti idinku xagee joogtaan war ninka adduunka la yaaban waa ninka Mareykan iyo China sax isugu haya midna bidixda ku sida midna midigta ku haya oo saa u maalaya dhag oo aa ka dhigtan weeye oo isugu keenay meesha Mareykankii baa yaaban oo wuxuu leeyahay wareed war maandho annaga hadaa dhulka naga kaleesay Shiinaha naga daa adeer dalka anaa le butaagay anaa le wixii dan ii wada waa keenaya waa ninka weeye marka reer Jabuuti waxa leenahay odayga ku fara adayga Soomaali baa kulli baantay idinku xagee joogtaan waa ka dhigteen waa ninka weeye berri baan barnaamijka soo bilaabi doonaa aabe Soomaaliyeed baa tahay wiilashii waa ku soo noqonayaan kula dardaarmi mayno waa ku filan tahay anaaba ku soo socdo Jabuuti iska dhiibaya Jarmal baana ka imanayo Jabuuti iska dhiibaya waa ku salaamay carabna inta laga gaarsiiyo wiilka Muqdisho lagu tababaro iyo kan Jabuuti lagu tababaro waa magaalo weeye waa labadeedii magaalo weeye kan Jabuuti jooga baanu maanta ku kalsooni badannahay sababtoo iyada amaana iyada maanta noo hagaagsan idinkuna sii sheer gareeya walaalaha iyo Jabuuti taageeradeena siiyeen xulkayaga siiyeen dawladdeeda siiyeen ilaa maanta burburayna la daba taagnaayeen aysan naga daalin ciidanka hil walaal leh dawladnimada la soo dhiso ilaa arta ka soo bilaabatay leh kursigii ay noo fadhiyeen leh sida wakiilka nooga yihiin leh badda see noogu dhicinaya leh war haloo maxad celiyo sheer gareey barnaamij bilaabi doona Ismaaciil oo jiro joog baan ku leenahay dadka xayawaanka ah oo waxa weeye dubka Soomaaliga ah oo carabi ku adeeganayso oo meelaha tacaayada ka soo fidinaya waxa leenahay war jooga idin leenahay nacala waxa tiin ku yaal nacala shitan ku yaal jooga leenahay waxa weeye waa in salaamay Soomaaliya ha noolaato Jabuuti ha noolaato ummadda Soomaaliyeed meel joogto ha noolaato waxa weeye Jabuuti markay Singapore Africa noqoto Singapore Africa waxa horumar ka socda maalin dhow iyada Dubai waa ka maarmayna iyo Singapore waaba laga maarmayaaba iyada loo socda way idin salaamay salaam alaykum sheer gareeya kama abees inuu ruugtay aan oran sheer gareeya 700 bay ku daawanayaan sheer gareyn meesaan war ma war xun baan sheegayna wacyi gelin baan wadna waxa weeye waxbaan hagaajinayna naga sheer gareeya intii ka bixin berri baan barnaamij odayga ka soo diyaarinaya carabey annagu dad walaala ah oo uliyo diirkeeda midigay bidix ma ka maarantaa Soomaaliya Jabuuti ma ka maarantaa Muqdisho Jabuuti ma ka maarantaa Ismaaciil Cumar Geelle ma ka maarana maya waa idin salaamay carabey waxa la weeye tiisa daryeelati kala ku dara war Suuriyaan iyo Liibiyaan ka shaqeeya waa baa idin leenahay ininki baa gurigiini gubanaya anagu saas isugu gurmanayna sida Ismaaciil waa ka nabad ilaalinta noo soo diray waa ka nagu kala dhex jira waa ka Kenya nooga hogtay ma Suuriya u xudditaan ruushka ciisaan nacala shidaankiina ku yaal shan gargaray assalamu alaykum warahmatullahi